waxyaabo badan oo afudeysano markii aan sameynayno ama aan buuxinayno requirements-ka jaamacadaha taasoo nagu noqoto caqabadaha ugu weyn aan kala kulano qurbaha caawa waxaa ku falanqeyn doonaa barnaamijkeena ama mawduuceena بإذن الله الكريم موضوع عاص مقعي وعنب عبد الرزاق دمانتين السودة هذا انت كحرن لمان براه برشد آلدها كاستعماله عبد برنامج كينا برنامج آد مهم تاسو أنفعصو أرضي والبورو أما رجدي سياتا مهمي سياتا إنو قربها إماضو أو وحكو برطو أما سفركيس وحبرشو خروسي وطو وحاجرتو وحيابا آد فربضان تاسو أرضي دو كوه سامين qayb badan waa kasoo hadalnay ama caqabad ku yeelanayso caawan barnaamijkeena waxaa dul istaagi doonaa waxyaabaha fududeysano marka jaamacadda ay noo soo dirto requirements-ka gadaalna ka noqdo waxyaabo aad iyo aad u weyn waxaana jirto qaab ama problemi kala duwan dadka qabsado waa qof walba shakhsi ahaan waxaa laga yaabaa qaabka wax u sameynaysid ama qaabka orajirsi ama qaabka ku taamaysid inaysan naqanin waan la isla arkay ardayda badankooda markaa buuxinaysid requirements-ka waa wax sahlan oo fudud taasoo aad soo bixi kartid markaa bilowga arkaysid laakiin gadaal waxyaabo badan isbedelo tusaale markaa wadanka joogtid oo kale oo codsiyada waxa dhan aad soo dirsanaysid hadii ay ku buuxsamaan oo kale codsiyada requirements waxa kamid ah midna waa warqada ugu horeeya ama codsiga ugu horeeya jaamacadda ay ku soo dirayso markii aad dhameystirtid acceptance letter oo waxa jir mid u dambeeyso tan hore qaarna waxay ku egtahay wadanka inta joogtid soo wada dhameystiray hadeena qalaheed maxaa lahaa bilowga certificate-kaaga haddii aad tahay arday oo kale oo iskuul soo dhameeyay waxaa transcript-gaaga in lagu weydiiyo kale oo iskuulka shahaadadaada baasboor iyo waxyaabo oo easy ah oo qof walba oo asaas u marka hore inuu wadanka soo tago ama soo baxo inuu haysto waxyaabaas marka laga soo tago waxaa jirto waxyaabo kaas way sameeyeen yihiin badanka jaamacadaha dhan kadib requirement-yada uu kala duwan yahay codsiyada uu kala duwan yahay taas oo jaamacadda xeerka u degan iyo waxyaabaha u baahan tahay waxay noqonaysaa wax sahlan fudud hadaaba inta soo martid intaan waa awoodaa isdhehaysid kadibna gadaal ka noqoto waxyaabo aad iyo aad u adag oo qofka inuu ka baxsado ay aad u adag tahay ama oo sii wado waxay noqonay qofka inuu amino dib u dago ama inuu soo filna u noqon weysi ama inuu depression ku qaado ama stress oo kale wixii oo wadi waayo kale waxaana ka mid ah tusaale waxyaabaha aad ku sahalsano ama aan fududeysano luqadaha ugu daran taasoo hadhow kugu noqonayso qarashaad haddee noqoto waqti haddee noqoto wax walba isku bedelay marka codsiyadii waxyaabaha soo sameynay sidoo kale dadna waxay wax ku bartaan wadanka imaanaan tusaale oo kale aan dalka Turkiga ku noolahay inay ku bartaan luqadda wadanka ama Turki dadna waxay codsanayaan inay ku qaataan ama inay ku bartaan English-ko kale kadib waxyaabaha codsiga ku qoran waxaa kamid ah tusaale inaa haysatid 3 shahaado haddii ama 2 shahaado jaamacadaha kala duwan qaarna ha shahaado kugu xijinayaan shahaadadaas waa ama TOEFL inaa haysatid ama inaa Cambridge haysatid ama inaa IELTS haysatid haddaa 3daas haysanin in requirement-gaaga oosan buuxsanin laakiin markaa wadanka imaad kadib waa markaa wadanka soo bixaysid ma ahan haddii intaas aad buuxin kartid ama haddii shahaadadaas aad haysatid horaa maxaa ka bilaaban kartaa galaasadaada iyo jaamacadaada iyo waxyaabaha kale qof dadku way kala duwan yihiin tan tusaalaha ugu fiican oo dadka badankoodna ku dhacda waaye haddii intaas aad haysanin shahaadada doontid wado English-ka doonta aqaan waxaa qasab kuugu noqonayso inaa imtixaan gashid problemkaasna wuxuu aad iyo aad u qabsadaa ardayda markay ka imaadaan wadanka ama batch haday ku baranayaan oo kale ama haday wadanka Turkiga ay ku qaadanayaan masterka badankin waxa ku arkaa ama ardayda Afrikadan ka imaada Afrikan badankeed waxa loo hadlaa Faranji ay yaqaanaan second language koodana waxa waaye Faranji waaye first language koodana luqada ay haystaan jirto oo u gaar sida anaga af Soomaaliga ah oo kale English-kana badankoodu ka adag yahay wadamada qaar sida loo maleeynaa ma aan Afrikada ku hadlaan ardayda waxa arkay dhamaantood kusoo noqdaan ama waxyaabaha ugu adag inay ku noqoto luqadda markay noqotane waxyaabo badan isbedeli doono waqtiga kugu dheeraan doono lacag extra oo inta aan lagu soo koobi karin waxaana ka sameyn doonaa kaas video waxa ugu sharxi doonaa si fiican qaabka ardayda dabinkaas uga dhacaan waxyaabaha ugu badbaadi karaan oo dadaalka iyo waxyaabaha laga rabo waxaan rajeynaa in markii aad aragtid acceptance maxaa lahaa warqada
inaad si fiican iskaga akhrisid qaabka lagaa rabo waxyaabaha lagaa rabo sidee wax yihiin codsiyada iyo wax walba aad buuxinaysid maskaxdaada degan adoon xamaasad ku heenin xitaa waxyaabaha qaar haddii lacala biri ay kugu soo noqdaan adoo ka baxsan kartid oo kale oo agtaada waxba ay ka wax normal ay ka tahay kuugu naqanin wax kadis oo aad u weyn oo problem oo maxaa lahaa dibna ay kugu soo noqonin ama naftaada dib ay ugu soo noqonin waxyaabaha ugu hortagi kartaan waxaa ka mid ah marka codsiyada iyo waxaa soo buuxsatid oo ku dhameystirmaan inaa qorsho oo maxaa lahaa dhameystiran aa leedahay haddii taasi ay kugu dhacdan inaa aqbali kartid maxaa lahaa haddii aad requirementskasni buuxin kartid kaliya ma ahan luqadda hadda ani waxyaabaha uu commenka arki waayo dadka badankood qabsaday ama dabinka ay ku dhaceen taasoo lagaaga saxsanaanayo bilowga maxaa lahaa inaadan si waxaa laga yaabaa inaad si normal ah u aqrisid oo adi agtaada wax weyn ay ka aheen yes waa sameyn karaayo kale ama luqadda waa baran karaayo kale waxyaabo badan waxaan rajeynaya videoga inuu ka anfici doono oona ka anfici doono intaadan soo dirsanin ka hor ama aadan aqbalin codsiyada jaamacadda ama requirementska ay kuu soo dirsato adoo maskaxdaada degan tahay xamaasad zaaid aysan ku heenin maxaa lahaa taxadar fiicanna sameynayo inaad requirementska buuxisid haddii waxyaabaha qaar ala kulantidna inay kuu noqdaan normal aa aqbashid haddii adi ee macquul ee kuu tahay si aysan biri kuugu noqonin wax kadis ah hadda waxaa laga yaabaa haddaa videogan daawatid waxaasoo dhan aa maqashid iyo problemka si u kala duwan yihiin oo kale inay biri wax normal ee kuu noqoto oo maxaa lahaa haddii aad aragtid isbedelkaas inuu kali ay tahay wax adi kaligaa ku qabsanin ardayda badankood qabsato haddana marka sanad lagu dhaho kale ama marka waxaa ku qoran sanad inaa luqadda aa qaadanaysid haddii sanadka ilaa marka imaado kale 6 bil waa laga yaabaa hadee maskaxdaada fududahoo kale ama adi hore englishka u taqaanidoo kale waxyaabo badan inay ku caawiyaan taasna waxaa sameyn doona inaad diyaarin fiican usoo sameeyo video fiican kasoo sameyn doona staabiska iyo waxyaabaha u baahan tahay iyo qaabka aad kaga gudbi kartidba biidnillahi alkariim taasna waxayna noqon doontaa videoga xiga inaan ka dhigaan rajeynaya dhammaantiina soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu